نفست وديك قصعده نف قبو حبس لي سيحي قبلها دباتدي جيستي لبا waxaa la laba Maryana la dhahaa mid Buraaqa la dhahaa midna waxaa la dhahaa Rabidin ma weydiisan maanta garab u baahanahay صح هذه هرم مو اوجد مثلا قدانا كوغاتي horey waa u ogaay laakiinse ma isdheheenin qofkan waa waxaas buu kugu sameynay kaaskii hore waa ninka ma filanaynin absolutely wax ma anina wax mar kasta wax saani geliyo waxaa waay daacadnimo ani aan qabo صح ayuga horta muhiimada waxaa waaye gabadha horta dhaawac ku yaalo way muuqdaa waan u jeedaa rag iyo dumarna looma kala harin sadar muuqda su'aalka dhan laakiinse wax walba horta ayada og ma fahanti su'aal badan horta maanta wax ma tarayso waayo wixii ku dhacayna soo xasuusato waxa waaye qalbiga xanuunaa marka baasdeji ما ناف anoo dilan نفست oo dhiig iga socdo oo neef qabo xabsi lay seexi فهموا أبا يهرتها أوين وحن كود عي قدري أهاين مقدشو وحي كود قبصان قدري أهاين تنوا قدر إلهي أكتي سنة عدالة وكيري دونتا الدون كان هذا أتشغلنا إن شاء الله عدالة وكويليسا ومدى الصوماليو دانا قرب تاغن دادكي الصوماليو ani weligay garab idin ma weydiisanin maanta garab u baahanahay صح صح أبايو fahmo horta fahmo maanta waxaan u galay dad shisheeye oo ka fogmaa waa dad laayada saaxiibadeeda ahaayeen sometimes saaxiibtinimada qaar ma fiicno dadka saa u gal maanta waa dad saaxiibadeeda waa dad ay aamintay waa dad Soomaalinimo hal qabiil maaha dad isku jiro waa dad saaxiibtinimo ee guri kula nooleed waa dadka maanta saa u gal gabadhan oo nin ugu yeeliyay فهموا مريم هذا إن شاء الله يركي عبد القادر جيد لي الله سماها يركا si fiican سور كيسو إيسو درتي لما السوشيال ميديا هو الوفا في سور كيسا عبد القادر جيد لي أوكي قبله دبعتها كو جستي إما سي أهايان gabdhaha dhibaatadii geystay laba waxaa la laba Maryana la dhahaa mid Buraaqa la dhahaa midna waxaa la dhahaa fahmo waxaa dhihi karnaa waa samirkii oo qof ah waa qof aad u dulqaad badan wallahi tan xigto Kenya horta sharciga ka jiro wadan sharci la'aan ma ahan haddii qof aad dhaawacdid ama qof dhibaato u gaarsiisid أي صح hadda qof maanta dhaawacda ama dhibaato u geysatidna dee kiiskeeda inuu zakaarin qof walba og wadankaana wadan sharci ka jiro waaye gabadhan xaqeeda ilaahay ha usoo dhiciyo haddii aana horta khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed maadaama horta ay ka bilaabata sheekada nin waxa dhihi karaa gabdhaha Soomaaliyeed garab aasasiino gabadhan walaasheena waa dhowr iyo 10 qof oo isku tagtaa maanta wax u qaban karto صح wax u qabano aan moraal siino aan iyadu dhisno